maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta markii labaad u fadhiisatay dacwadda eedeysanayaal loo haysto weerarkii Soobe ka dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux. maxkamadda ayaa maanta maalintii labaad gashay waxaana la hor keenay markaatiyaal iyo cadeymo dheeri ah iyadoo maxkamadda lagu soo bandhigay muuqaal ay qabatay kaamirada CC camera taas oo laga duubay qaabkii uu u dhacay qaraxii iskooskii Soobe ee dadka badan ay ku dhinteen. xafiiska xeer ilaalinta ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo bandhigay ugu horeyntii dalabkooda oo ahaa in la ciqaabo eedeysanayaasha maadaama ay sheegeen in cadeymo loo haayo inay dembiga galeen. xafiiska waxaa laanta codsanaya in la saaro ciqaab u dhiganta dembiga ay ka galeen dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed. mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh Cabdiweli Axmed Diiriye iyo Muqtaar Maxamuud Xasan Rooble labaduba waxay mas'uul ka ahaayeen in gaarigaas laama amniga ku kalsoonaadaan si kalsooniga uu ku soo galo magaalada Muqdisho intaas oo dadana ku laayo. qareennada difaacaya eedeysanayaasha ayaa dhinacooda codsiyadooda soo jeediyay. maxkamadda sharafta leh waxaan weydiisanayaa ayadoo la fiirinayo aayadda quraanka ayadoo la fiirinayo qaanuunka asan shaqo ku lahayn ayadoo la fiirinayo wax walba ayadoo cadaaladda la fiirinayo maantana aan filayo maxkamadda ugu cadaalad badan dalka inay mid doonto inaan filayo cabdi warsame in laga xurrimadiisa loo celiyo maadaama asan dembiga lugeesa fal ku lahayn shaqo ku lahayn maxkamadda waa mahadsanta inaan geesinimo u yeelano waa xasuuqa dhacay mantaqada dadkii aan mas-uulka inaan sii day karno waa ummadda aan tusno waddankan sharci iyo dastuur iyo shariica ka jirto. gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in la soo gabagabeeyay dooda kiiska eedeysanayaashan waxaana uu sheegay in maxkamaddu ay ku dhawaaqi doonto go'aankeeda. dacwada la xiriirtay shanta eedeysane oo maalmahan socotay halkaas ayay ku dhameystiran tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto hadduu Ilaahay yiraahdo. Axmed Saciid Axmed, telefishinka Cable, magaalada Muqdisho.